kowda bisha Disembar 2022 ayaa laga xusay maalinta AIDS ee adduunka waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabiyay bisha cas ee gobolka Awdal oo kaashanaysa xafiiska komishanka xakamaynta HIV AIDS ee gobolka Awdal waxaana halkaasi laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo ku wajahna sidii loo yareyn lahaa isla markaasina loo xakameyn lahaa xanuunka HIV AIDS waxaana munaasabadaasi ugu horeyntii ka hadlay Ifraax Ismaan Reydal oo ku hadlaysay magaca bisha cas qaybteeda caafimaadka ee gobolka Awdal sideen caadada inoo ahaydba maanta waa maalin awalba aynu xusi jirnay ama isxasuusin oran jirnay xasuusin yani cudurka HIV AIDS dunida aad buu hayaa inkastoo moodo inaga gobolladeena inuu qarsoon yahay oo iminka aan la moodo inuu baaba'ay laakiin uma baabiina wuu jiraa marka waa isxasuusinayo inuu cudurkii wali jiro haddaanu jirin adduunka lagama xuseen maanta lama hadal qaadin laakiin wuu jiraa sababaha laakiin loo dareemay waxa kamid ah kolba xaalad baa la maraya xanuunkii oo la gartay bari waxa jirtay ma taqaanaa in la soo maray qofka TB-da hayso TB-du sida AIDS ku meehan jirtay oo qofka la faqooqi jiray oo qofka ma taqaanaa la qarin jiray oo la oran jiray waa hiddo waa sidan waa dhaxan wax yar oo kale loo bixin jiray laakiin TB ba laga xanaaqi jiray wax la yiraahdo si halka AIDS ku bay joogtay maantana waad arkaysaan waa xanuunada caadiga uu ka mid noqday marka HIV AIDS kuna waa xanuunada kamid ah waa xanuun ma taqaanaa Ilaahay qofka ku keeno maaha xanuun qofka lagu faqooqo waxyaalaha iminka uu qarsoon yahay waxa kamid ah dadkii oo fahmay kow dawadii oo jirta laba oo qofkii dawadii la noolanayay ARVRT-gii loo siinayo oo qofkii la siinayo dawo cimrigiisa saacadun baa loo dhintaa cudur looma dhinto dhalinyarta guursanaysan waxaan leenahay isbaadha baadhistu way jirtaa hal isbaadho qoyskii oo nadiif ah qoys qurux badan Allah inoo soo saaro sidoo kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah shaqaalaha xakamaynta HIV AIDS iyo shaqaalaha bisha cas ee gobolka Awdal volunteerku runtii waa laamaha ay bisha cas ama baadashaha ku duusho weeyaan shaqadooda ay qabtaan waxa weeyaan wacyigelin ay u qaabilsan yihiin dhammaan xanuunada faafa oo dhan ay bulshada marka ay yimaadaan hadii ay yimaadaan ay waxay ka wacyigeliyaan bulshada maanta waxa weey waa maalinta xuska 1 December xanuunka HIV AIDS oo halkudhigiisu yahay sinaan inuu qof walba uu markaasi uu ka warayo xanuunka koortaga xanuunka HIV-gu inuu yahay xanuun uunan hayn xanuun heredity uu leeyahay laakiin uu yahay xanuun ku dhici kara qof walba uu yahay waxa ugu dambeyntii ka hadlay maalintaasi xuska HIV AIDS oo ku beegan 1 December Mooge Cali Obsiye oo kamid ah saraakiisha bisha cas ee gobolka Awdal HIV AIDS-kii maanta 129 dawladood caalamka laga xusaya maanta 129 dawladood wax kale looga xusaya si ma garanaysaa dibtaasi taala ee madaxdu taabatay ee caalamkii wareerisay ayaa mar garanaysaa la xusaya si maalin loo sameeyay 1 AIDS-ka May maalinta December 1 ayaa lagu talagalay in caalamka oo dhan laga dabaaldego saaka BBC markaan dhageysanay waxa la sheegay dad ka hadlayo laha ma garanaysaa dad ku dhow ilaa 800 ilaa 900 oo qof ayaa Soomaaliland gudaheega ku dhex jira marka sida Ifraax sheegay weeyaan baalka marka ma dhamaanine oo noo yar seexdo uu soo jira dhalinyarta marka waxa leenahay baalka ku baraarugsanaada sida taxadirka aad ahaan jirteen ilaaliya waxaan xasuusin TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama